محمد يا رسول الله صلى. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. walaalayaal soo dhawaada qodobo aad iyo aad muhiim ayaan idin hayaa. qodobadaas oo ku saabsan bisha barakeysan ee Ramadaan ee ku jirno. Hadda waxaan ku jirnaa tobankii hore oo raxmadiya socota, tobanka dhexe maqfiradiya, tobanka u dambeeya leerito qadarkii iyo naarka xareyntii ilaahay naarta naga xareeyo. Fariintan waxay ku saabsan tahay walaalayaal sidee qaabkii loo cibaadeysanay, qaabkii caajiska iyo fikirka iyo maalayacniga iyo laqwiga iyo hadalka beenta iyo xanka waxaa sidee looga tegay. Waxaa la doonayaa hataa taa qof muslim inay cibaadeysid bishaan iyo ku dhaafin, si been iyo ku dhaafin. bilaha kaleete way ogtahay waa la iska baashaalaa, waa caadi, waa la iska shaqeystaa, laakiin bishaan waxaa la rabaa dhexda inaad xiratid sidii nin shaqo ku jiro oo kaleete. Shaqadan waa shaqo adag. bishaan waa bil magaciisa barakeysan, ilaahay barakeeyay. waliba nabiga sallallahu alayhi wasallam markuu mimbarka fuunayay oo aamiin aamiin soo dhahaya ayuu macnaha saxaabada weydiiyay rasuulka ilaahay maxaa la tiri aamiin. waxaa ii yimid Jibriil alayhi salaam wuxuuna yiri ilaahu bisha Ramadaan qofkii soo gaaro oo aan macnaha loogu dambi dhaafin narta la ku fogeeyo aniguna aamiina yiri. war walaal meesha waa la isku habaaray, meesha ka kac, war meesha ka kac cibaadeyso, war ilaahay bari, war gacmaha u taago, rabbigeen waa boqorkii ku abuurtay, gacmaha u taago. gacmaha ilaahay qofkii u tagto barya oo ilaahay masoo celiyaa leeyahay. marka walaal waxaa la doonayaa si fiican oo wanaagsan ilaahay inuu barino. qaabkeenu cibaadeysanin caawa dhowr qodob aan yahay qodobada aan guda galno. Salliga Nabiga sallallahu alayhi wasallam ayaa ugu horeeya noo soo qabo. Salliga Nabiga sallallahu alayhi wasallam waxaa la doonayaa inaad macnaha maalintii la timaadid in adiga kula eg oo kugu filan. tusaale ahaan salliga Nabiga lagama dhigi karo horta horun, laakiin caajiska iyo macnaha waxaa la doonayaa in la iska qaado. tusaale caawa waxaan u soo qaadan karnaa intii adiga ilaahay hadduu idmo oo aad leedahay waa qari kartaa. salliga Nabiga sallallahu alayhi wasallam waxaa ugu yar markii macnaha hal mar ugu yar, laakiin intaa u badan waxa u badan intaa jeceshaado, intaa jeceshaa ugu badan adaa yaqaana. marka ma dhamaado Nabiga sallallahu alayhi wasallam salligiisa ma dhamaado. dad ayaa mooday in la yiri boqol bis, boqol ugu dambeeyay waa inta aqri kartid awoodid. waxaa la rabaa marka salliga Nabiga sallallahu alayhi wasallam ma soo qabaayada quraanka ilaahay muxuu yiri inna allaha wa malaa'ikatahu yusalluna 'alan nabiy ya ayyuhalladhina aamanu sallu 'alayhi wa sallimu taslima. allahumma salli 'ala sayyidina muhammad. ilaahay wuxuu yiri subhanahu wa ta'ala inna allaha ilaahay wa malaa'ikatiisa 'alan nabiy muhammad sallallahu alayhi wa sallam ku saliyaan ya ayyuhalladhina ku imanka laga helayo adunkuna sallu 'alayhi wa sallimu taslima. nabiga ku saliya annagii aan amray ilaahay malaa'iktiisa ku saliyay Maxamed adunkuna ku saliya. marka walaalayaal waxaa la doonayaa caajis ka kac inaan nabiga ku saliyo. waliba nabiga sallallahu alayhi wasallam xadiiska uu noogu sheegay wuxuu yiri man salla calaya maratan biha 10, qofkii hal mar igu saliya wuxuu helayaa 10 jeer. waxaa la rabaa markaan shaqeystid dadaashid qaabka u dadaashid. waxaa la doonayaa salliga Nabiga sallallahu alayhi wasallam waxaa la yiri qofkii isku daya 1,000 inuu akhriyo, 1,000 markuu akhriyo 70 jeer adigu waxaa laga fogeynayaa naarta ka sii dheeraanay. marka kun akhridiba 70 jeer ayaa laga fogeynay maalin walba ama habeen walba. hadaa kun akhridid oo daayimatid maalin walba jahannamo iyo jaxiimo iyo kulli naar waa laga fogeynayaa. ka faa'iideyso walaal. waxaa la doonayaa inaad shaqeysatid la doonayaa. ilaahay subhanahu wa ta'ala naarta waa nacabna waarka walaal ha dheelsan. salliga Nabiga sallallahu alayhi wasallam ku salli, wad ku tababbur, ku fakir, ka dhigo cunto aa cuntid mar waa markaad jidka mareydid tusbax qaado, jidka ku wardi, jidka ha cabsan, jidada maraya adoo maskaxda maqan tahay adoo jooga qalbigaaga intaba Nabiga sallallahu alayhi wasallam way ku banaan tahay. cibaadada kale waxaa jira inaad qalbiga ka keentaa raamugta soo xadirid subhanallah. markaa dheedid qalbiga soo xadirid waa shardi lagu leeyahay. alxamdulillah qalbiga soo xadir waa shardi. hadaa maasan tahay waa garteeda, laakiin waxaa lagu leeyahay salliga Nabiga sallallahu alayhi wasallam waxaa lagu leeyahay hataa waa ku banaayay hataa maskaxda maasan. quraanku la mid yahay, quraanka adoo maasan hataa akhrid ajirkiisa waa banaanka waa helayda. laakiin ha yareysan salliga Nabiga sallallahu alayhi wasallam saas ugu dadaal. midda kale tawassulku waa jira asaguna xadiis tawassul oo soo aroray. قال الله تعالى قال الله رسول الله صلى الله عليه وسلم wuxuu yiri tawassalu jaahi fa inna jaaha 'inda Allahi al-'azim. war ku tawassula jaahaygu
عند الله العظيم أكتي إلهي وكون هاي وتوصل يري سو دويسو سلك النبي صلى الله عليه وسلم نارتا laga xoreyni qalbiga lagu nuurini jirka lagu nuurini ilmaha lagu barakeen adiga ku naxariisan adiga naarta laga fogeyni nabiga ugu dhawaan jannada kula geli shafaacadiisa ku heli dadaal samee waa cibaado ha yareysan waliba waxa jirta la yiri nabiga sallallahu alayhi wasallam wuxuu yiri maalinka jimcaha waa la bandhigaa anoo qabriga jooga xataa inta waa la bandhigaa waa la keenay macnaha si toos ah dhagaya ku maqlaa yiri si toos ah la igu keenay yiri markii macnaha qof igu saliyo si toos ayaa maqlaa yiri qabriga inuu ku jira ayaa maqlaya laakiin maalmaha kale wuxuu yiri waa la keenaa waa la soo bandhigaa laakiin si toos ah jimcaha inaad shaqeystaan rabaa ku dadaashid oo ka dooratid oo tiraad maanta waa jimco waxaan rabaa inaad dhex darto inta la qeybkaro 2 3 4 5 6 ilaa 100 intii aad wadid adiga intii aad leedahay ma sha Allah jabsatid oo qeyrka saas u shaqeysatid ayaa la doonayaa walaal marka waxaa la doonayaa walaal inaan intaas ku soo gabagabeeyo cibaadadkan waa si socda ilaahay la taqdirkan nagu aadiyo alla bari iyo wax badan la sameeyaa ilaahay la baryaa alla bari la'aan ma jirto alla bari gacmaha u taago yaa rabbi yaa arhamar rahimin ilaahay la taqdirka nagu aadi ilaahay waxa si alla alxamdulillah wa shukran inta saan ku soo gabagabeeyaa wabillahi tawfiiq wassalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh walaal fariintan sii gaarsiiyay walaalaha muslimiinta kale si u soo gaaraan adiguna uga faa'iideysid والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أجري كارثة محمد يا رسول الله صلى